waxaad bal wax nooga taaba jilayaasha tir dhaxaadka oo ah qisada mid waliba doorkiisa jilayaal lowra ayaa ku jira sheekada ama qisadan jilayaasha markaad eegto marka sibuu midba sheekada ugu jira dhowr baynu tusaale uga soo qaadanaynaa ma wada muxuu soo koobno qisadan waxa laf dhabarka ah maanafay ayay ku socotaa sida magaceeduba uu magaci sheekada loo siiyay qaybta koowaad ay ku bilaabanayso bagga koowaad waxa weeyaan maanafay buu ku bilaabmaya waa gartay wuxuuna ku dhamaanayaa maanafay ayadoo ku bilaabanaya ayadoo ku dhamaanaya dhexdana meel ay ka maqan tahay ma jirto marka maanafay waxa weeyaan waa gabadh soo kortay dugsiga sare dhigata gashaantiya xilligii guurka gaadhay waa gabadh wanaagsan sida magaceedu oo niyad fiican dadku ay jecel yihiin waalidkeed iyo bulshadii intuu way jecel yihiin gabadhaasi waxay leedahay aqoon kooban oo dugsiga sare dhigata waaye aragnimo badan ma laha waaye aragnimo badan oo nolosha ama laha reerkoodii intoodaba kamay bixin waxa keenay ku dhex jirka qoyskii iyo da'da xataa mugtay waa arday dugsi sare dhigta mugtay waa aragnimo badan ma laha maanafay dhaliil bay leedahay waa ilnugeyl ma dhiirana khajlaad bay leedahay marka kuwaas waxay ku keenayaan qisada markaad akhrido dhibaatooyin ku dhacaya waa dhibaatooyin dhaliishaas ilnugeylku ay keentay waxyaabo ahayd inay diido ma diidayso tusaale ahaan markaasaa waxaa ku dhalanaya dhibaato ayaa ku dhalanaya marka ilnugeylkaas yani qisada jilideedana qayb weyn buu kaga jira ilnugeyl hadday indha adkaan lahayd waxaa laga yaabaa kaalinta inayna si fiican ayna u qaadateen gabadhaas maanafay la yidhaahdo mawjadihii nolosha ayaa qarqinaya mawjadahaas waxay ku dhowaanaysaa inay nolosheeda burburiyaan mar inay isdishayba ku siganaysaa ugu dambeynsa way ka badbaadaysaa waa ilaawidii boorsada uga badbaaday way ka badbaadaysaa dadka kaleeta ee qisadan laf dhabarka ka ah waxaa ka mid ah jaamac dhegey ninka odayga jaamac dhegey waa muwaadin caadiya miyiga kusoo barbaaray nolol dhib badan kusoo koray magaalada markii dambe yimid magaalada iskoris ahaa aqoon buuran aan helin bulshada aan barbaarin fiican aan ka helin oo bulshada barbaarin gacan qabasho ma helin waa iskoris nimadkiisas waxay keentay nolosha inuu meel fiican ka gaadho dadaalkii uu sameeyey noloshiisa miyiga uu ku soo koray dhibkeedu wuxuu u keenay dhaawaca dhegey ay u soo jeedeen naanaystu marka waxay ka turjumaysaa dhibaatadii raadkii ay noloshu kaga tegaysay shakhsiyadiisa barbaarideeda nafta hoosana dhaawacyadaasi way ku jiraan laakiin dushiisana way ka muuqataa dhegtaas loogu magac darayba weeyaan way ka muuqataa waa dhinaca markaad ka eegto marka haddana ninkaasi wuxuu madax ka noqday mashruuc weyn oo muhiima nolosha uu ku soo barbaaray iyo xaaladda uu ku soo koray iyo dhaawacyadaa soo gaadhay waxay natiijo dabiici ay dhalayaan sida uu dhaqmayo mashruuca si fiican uma maamulayo wuxuu adeegsanayaa wuu ku tagrifalayaa hantidii wuxuu adeegsanayaa burburinta bulshada qaybo ka mida halka uu haddana caruurtiisa iyo qoyskiisa inuu barbaariyo koriyo oo dad wanaagsan uu ka dhigo marka jaamac dhegey waa ninka odayga ah isna sheekada meel weyn ayuu kaga jiraa qayb weyn waxaa jirta islaan la yidhaha baydan shabeel waa qof weli qof weyn oo da' weyn ma noqon laakiin waa kontameeya meelahaas jirta waa qof weyn oo kortay haween weyn weeyaan baydan shabeel waa qof muwaadin duruufo dhib badan kusoo kortay miyi ku dhalatay kusoo barbaartay abaaro ku dhaceen abaarihii ay keeneen inay magaalada u soo qaxaan u soo daaduunto magaaladii markay timid iskoris bay noqotay iyadoo gabadh ah cid gacan qabata way weyday nolol dhib laho duruuf xun xilligii gumaysi oon xorriyadiiba la qaadan noloshaa dhibka badan bay kusoo jirtay
xorriyaddii bay usoo joogtay way ku halgankii gobonnimadoonka markii la joogay wixii ay heli karaysay way u hurtay xorriyaddii bay ku faraxday xorriyaddii markay timid daryeel dadweynihii iyo bulshadii mid iyo dowladdii toona daryeel kama helin way ku hungowday dhibaato badan bay la sii kulantay nolosheedu way sii xumaatay 69kii dowladdii kacaanka militariga dhalatay way ku faraxday haddana markay sii joogtay haddana iyadana way ku hungowday nolosheedii waxay ka soo gaadhay markaa dulmi iyo dayacnaan xoog leh ayaa waxay mar walba kala kulmaysaa bulshada ku hareeraysan iyo maamulka labadaba maamulku waa dayacaad waxa laga yaabaa inaan dulmi gaar iyada loo geysan waxa ku soo jirta haddana dhibaatadaasi dhaawac ay u geysatay waxay ku keentay bulshadii inay nacdo waxay go'aan ku gaadhay in bulshada ka aargudato markaas waxay shaqo ka dhigatay fataalida inay dumarka iyo ragga isu geyso ragga inay u geyso dili kara bulshada gabdhaha dhalinyarada inay u iib geyso markaas ay u furatay guri dhan marka fataalida ay ka shaqeynayso waxa weeyaan waa hub u adeegsanayso aargudasho ay ka aargudanayso bulshada marka koritaankeedii bulshada ka sastay markaas magaca baydan saas ku tusaya shabeel manaanays ba mise waa aabaheed ma garanayo inay marka shabeel waxaad halkaa ku waa sidii riwaayadii shabeel naagood oo kale oo marka dadka kale riwaayada ku jira qisadan ku jira waxaa ka mid ah Faadumo Yari waa gabadh yar reer afkooya ahayd qoyskoodii muxuu u baaba'ay dhowr caruur ay walaalayihiin waxay u soo carareen magaalada Muqdisho iyada oo ay gabadh yara ayaa hambada ay reerka u shaqeysa ay ka soo qaato ayay ku korisaa way dhiban tahay mustaqbalkeeda cid ka fikiraysa ma jirto mustaqbalkeedu wuu dhibadan yahay waxbarasho male hadda iyadu waxbarasho doonato caruurtan yar yar kale cid biilaysa male marka waxay tusaale u tahay caruur badan oo kaleeto oo dayacnayd ay tahay طبعا حبنا كلنا ويكجران سيدا حاج مومن iyo Sahra Yusuf iyo Ahmed Jaamac iyo laakiin dhowr kan qof waxay noogu jilayaasha ay ka mid yihiin waan gartay